dowladda Soomaaliya waxay khasnadeeda dhexe ka bixisay oo ugu deeqday ama ugu talagashay taakulaynta dadka ay waxyeeleeyeen roobabka iyo fatahaadu 500,000 oo dollar oo ah inta maanta ka bixi karta ama ay awoodi karto khasnada dhexe ee dowladdu sidoo kalena dhammaan madaxda qaranku waxay ka go'an inay si shakhsi ah iyo si abaabul ah iyo si dowladnimo intaba wixii ay awoodaan ay ka dabageeyaan oo mar walba shacabkooda ay la socdaan khasaaraha iyo dhibaatooyinka gaaraya oo ay ka jawaabaan mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladdu sida la socotaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare waxay already ku dhawaaqeen inay ugu deeqeen dadka walaalahooda dhibaatadu haleeshay mushaharkooda bisha October sidoo kalena golaha wasiirada oo bari leh kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa iyaguna jawaabta la mid ah bixin doona bari